وايد السلام يا مركو هوري وحان رجينا يا رنتي وحا عاو هالكن كاني inaan horta idin sheego waxa halkan keenay jacayl aan idin qabadartiis maxay ahayto waxaan amaan iyo mahad ballaaran u celinayaa runtii aad iyo aad baan runtii u xanuunsanayay markii aan xaafadayda ka soo baxayay waxa jeebka igu jira ama farqaha ku wata kiniyaal aan u isticmaalay xanuunka haya laakiin xanuunku inuusan iga reebin inaan ka qayb galo qaybaha bulshada Soomaalida gaar ahaan haweenka iska xil saaray bundadu waxaad garanaysaan qiimaha ay leedahay ama asaas inay u tahay nolosha horumar aadami ama bil aadam ay gaaraan sidaas darteed waxaan anigoo ku hadlaya magaca dadka Soomaalida ah waxaan rajaynayaa inaad garanaysaan ama fahamsantihiin dadka maanta halkan goob jooga ka ah in ayan ka imaanin magaalada beledweyne ama gobolka Hiiraan guud ahaan laakiin sida Cabdulqaadir Xaaji Masalo halkan ka hadlayay isagoo kuma dayan karno maxaa jira xuduntiisa halkaas ku duugan waxa halkan keenay waxa halkan anna keenay waxa isaga keenay maxaa jira Hiiraan waxay aas-aaska u dhigtay qarannimada iyo madax bannaanida dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya loo yaqaano waxa ka soo jeeda hogaamiyayaal fac weyn oo laga tilmaami karo madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdullaahi Cismaan waxa ka soo jeeda nin aad ay u garanayaan qaybaha bulshada Soomaalida taariikhna kaga tagay Sheekh Cali Jimcaale waxa ka soo jeeda Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Masale oo aad isaga laftiisa garanaysaan si uu maqaatin ugu noqdo inta ila joogta ee nala joogta kulankan iyo inta ka maqan ee Soomaalida ah waxaan ka codsanayaa inay ka qayb galaan Hiiraan waa hooyadii waxaad garanaysaan inay ku taal bartamaha dalka Soomaaliya sidaas darteed Hiiraan waa in lagu taageeraa ma aha Hiiraan in la taageerayo oo lagu taageerayo dadkeeda macnaha deegaan dadka halka ku dhaqan in lagu taageerayo laakiin waxaad garanaysaa ninka koonfurta ka taga waqooyi ma tagayo haduusan Hiiraan marin ninka waqooyi ka yimaada muqdisho ma tagayo ama koonfurta ma tagayo isagoon Hiiraan soo marin anigu 9 bilood baan kaga qayb galay shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee halkaas lagu qabtay waxaan rajaynayaa Hiiraan waxa ka soo jeeda ku noqon maayo hadalka waa soo ururinaya maadaama uu xanuun hayo waxay hooyo u tahay wixii aan horay uga hadlay waxaan rajaynayaa idanka Ilaahay in hooyo kasta oo ku dhaqan gobolkaas iyo degmadaas inay dhasho wiilal mar kale horseed u noqda maxay ahayto qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya waa mahadsantihiin Hiiraan iyo dadka halkan jooga dhamaantood ha ku guuleysteen abaabulka ay ugu jiraan dhismaha buntadaas waa mahadsan